Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan joognaa Saakay gobolka Bakool magaalada madaxdiisa Xudur koonfur galbeed Soomaaliya. Ayaan soo gaarnay gudoomiyaha guddiga sare ee qabanqaabada xuska maalmaha xorriyadda 26kii loo soo dhaafay iyo 1 Luulyo wasiirka warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka Senator Cismaan Dube nagu hogaaminayay waxa kale oo nagu heliya labada agaasimo guud ee wasaaradda xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka iyo la taliyaha wasaaradda gargaarka waxaan halkan u soo gaarnay Saakay aan u nimid waa inaan fulino amarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud aniga iyo wasiirka waxaan ka wada tirsanahay guddiga gurmadka abaaraha wuxuuna gudoomiye noogu yahay guddiga sare ee qabanqaabada maalmaha xorriyadda loo xusayo faritaanka amarka madaxweynaha oo ahaa in madax banaanida iyo xorriyadda qarannimada dadka iyo dalka Soomaaliyeed la xuso balse xaaladaha bini'aadanimo oo lagu jiro abaaraha dalka awgeed la dhimo fantasiyihii tirada badnaa ee la qabanayay looguna bedelo in dadka loogu fidiyo gurmad si looga qayb qaato xaaladaha bini'aadanimo waa ognahay in xaaladaha bini'aadanimo ee ahayn raashin meel la keeno laakiin waxa dalka ka jira cunno yari biyo yari caafimaad darro iyo amni darro dadkeena xoolo dhaqatada beeraleyda ah ay uga soo wada guureen uga soo wada barakaceen xaaladaha jiro ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdi Barre iyo xukuumaddiisa ayaana barnaamij weyn madaxweynaha uu hordhigay oo sugidda amniga iyo ka hortagga xaaladaha bini'aadanimo sidii loo yareyn lahaa khataraha masiibooyinka dalka ka jirto haday tahay amniga koow caafimaadka iyo sidii biyo yarida haday wara tahay iyo hadii ay tahay ceelal dadkii deegaanadooda ay ugu nugaadaan waa ognahay in magaalooyinka oo dhan laga soo barakacay miyigoodii oo lagu culays badan saaran yahay magaalooyinka waayo dadkeena miyigi joogay maadaama ay beerihiina ku qodan waayeen xoolihiina kaga dhammaadeen cunto yarida iyo biyo yarida isbeddelka cimilada darteed roob yarida jirta iyo iyada oo caalamka saayida gargaar uu Soomaaliya ugu deeqayo ay wax badan isdhintay haday tahay dagaalada geeska Afrika iyo hadii ay tahay xaaladda Ukraine oo aad u saameysay dhintayna arrimaha bini'aadanimo kaalintii dawladda looga qayb qaadan lahaa laakiin Soomaaliya dadkeeda gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga ayaa la faray inay diinteenu fartay madaxdeennuna fartay inay isu gargaaraan oo ay isu gurmadaan dawladdana wixii dadaal ah oo ay hayso oo dhan ayay ku bixinaysaa gudoomiyaha guddiga habeen hore 26 Juun ayuu ka sheegay in amarka madaxweynuhu faray aan sameynayno waxaan maanta soo gaarnay qayb kamida horeyna waan u sameynay Puntland waxa gaartay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka madam Saadiya oo tagtay maanta waxaan joognaa Xudur ilaa 1 Luulyana waan wadaynaa barnaamij cad oo dalka sidii loo yareyn lahaa khataraha masiibooyinkana dhawaan ayaa la soo bandhigi doonaa barnaamijka xukuumadda haddii Allah awood la ogolaado annagana waxaan fulinaynaa maanta faritaankii amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiye Cismaan Dube soo dhow